sannado ka hor ceelkan waa la isku layn jiray biyo la'aan awgeed xooluhuna waxay oon la dul hogan jireen muddo 3 bili ah sida ay sheegeen dad waayo jooga ceelkan aynu hadda dul joogno dushiisa taaganahay tilmaanta aynu ugu siinayna waxa weeye waa kii tuureed oo taariikhda hore oo la isku layn jiray oo biyo yaroodka ahaa oo loo dhici jiray toddobaadada iyo ka badanba sida daraadeed ay kalifi jiray in geela laftigiisu isagoo ooman lagala noqdo marka qaybta markuu bil joogo oo la aado ayl iyo soonayaasha waxaan soo joogay 3 habeen oo isxiga ari ooman baan ku xiriyay 3 habeen waxaan dhowrayay ariya iga horeeyay oo intaas iyo in ka badan iyaguna meesha oon ugu xiraysnaa ba waxa la lahaa madda la istaba joogaayo midba mid buu ka horeeya anigu goortii aan qabsaday oo cabayna kuwa aniga iga dhameeyay ba sidoo kale dhowr habeen iyaguna u sii joogay ceelka waxaan joogay iyadoo la hoganayo oo dhaaman joogaanin ba waxa timi gabar rati wadata oo 2 jiir gaan saaran yihiin waxay tiri guriga aan xalay joogay gabar baa ku nafbaxday ninkii joogay baa wuxuu yiri tiga ka hayo ceelkii aado ciidan iyo waxaad iiga doontaa waxila xabaala iyo biyo ceelkana waa la meelaysanaya markaas rag waxa la yiri waratiga kan waxa uu yaala horta bal isaga 2 jiirgaan iyo isaga inuu wax siino nin baa hadlay wuxuu yiri wallahi baan anigu meeladeeda uga bixinay balse maanta meel kasto aad xarxartid biyo ayaa ka soo burqanaya oo waa laga baxay baahidii loo qabay biyo yaroodka dadkii dunyadu dalaal ayay uga cabaan ceelashan oo ku yaal tuulada tuur oo hoos tagta degmada ayl ee gobolka nugaal ceelashan ayaa laga soo raraa deegaanada ku xeeran tuulada tuur balse waxaa shacabka farakul ku haya oo marka ceelka laga dareero ku soo xoomaya dabadeedna asaruuraya xayawaanka loo yaqaan daanyeerka oo ah duurjoog hadba meesha qar kale ka quwaxaysta mid ka mid ah dadka u soo dhaamiyay ceelashan ayaa lagu qaybiyay inuu horeeyo daanyeerka inta xooluhu ay cabayaan iyadoo laga baqayo inuu xoolaha u soo aroor tagay ceelkan uu didiyo waxaana sheegay in bahalkan uu dadka dhib xoogan ku hayo intay xooluhu cabayaan tan waxa fidmo ku hayo hawl ku haya bahal loo daanyeer bahalkaas oo wasakhayo oo jeermis u geysta saxarna ku daadiya marka bahalkaas waxa loo baahan in laga daboolo eraas oo baamo looga sameeyo laga xafido haddana waa kan gaashan ka muuqdo halkan waa kan hadda marmarayo waa kaas ceel ku jaakariya markii waxay saa qofku ugu wareego buu ceel khariyo oo federinayo hadda waa kan ka baxay dhirta iyo gabiga ka baxaya saasuna bahalku weerar wadanka ugu haya haddana ceel ku rumanaya xagga ceelka waxa sadin ku yahay hadda waa daayirki waa soo rabaa inuu weeraro ceelka nabadoon cabdullaahi ow axmed ayaa tilmaamay in ceelashan loo baahan yahay in lagu xiro bam si looga badbaado cudur ka dhasha biyahan maadaama dadka iyo daanyeerku ay hal goob ka cabaan waagi hore meeshan waxay ahaan jiray ceel yar oo halkaas oo hadii la ku rooyahay maalintii ari tire baa ka cabi jiray iyo dhowrtii oo dhaana meel halkana dhalina daanyeerka iyo adigu ari baa ka cabi jiray marka hadda ilaahay mahadiis intaas oo af baa 30 ceel af baa ka qodan dhibaatada u weyn hadda waxay haysataa daanyeerka iyo bahalaha baa galahamee maantii goortii xooluhu ka tagaaneen in maaragtay waxa loo baahan yahay meesha wax laga qabto ceelasha la daboolo bam la wada saaro ceelashana si fiican loo qodo oo mataqaan meesha ceelku weynaa wali lama gaarin waxa ka waa dad wax gacan ku qodo oo hadii la ku rooyahay marka hadii ama riig la keen lahaa ama qalab fiican la keen lahaa oo dad la keen lahaa waxaan biyo badan baa la gaari lahaa hadda waxa la cabaa wax yar weeye tuulada tuur oo hoos tagtay degmada ayl ee gobolka nugaal ayaa ah tuulo dhawaan la asaasay haatan si xawli ah u koraysa sida ay sheegeen dadka deegaanka waxaana ka fog halka ay ku yaalaan ceelasha iyadoo biyaha tuurta tuulada lagu soo dhaamiyo waxaad arkaysaa dumarka iyo ciyaalka oo walaandaynaya jirgaamo laga soo dhaamiyay ceelasha oo aad uga durugsan tuulada waxayna dawladda cusub iyo hay'adaha ka codsadeen in arrintan wax laga qabto maadaama ay ku dhiban yihiin keenida biyaha meelo fog laga soo dhaamiyo tuulada tuur qaliif geli Jubaland TV garow